kulanti wacan daawadayaal waa joogtaan aniga salaamay aniga fartuun bariyahan wali waaye maanta ma qurux badan ayaan fadhiyaa halkan waxaan ka sheegaa nafsi fadhiistay maanta haddaan wax khaldan aan ku hadlo mise wax saxan aan ka hadlo community ayaa jawaab sax ka sugaya walaalo marka waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arin jirto oo social media bariyahan qabsatay dad horta wax la dhaho Facebook ana ma isticmaalin horana waan lagu sheegay maalin walba inaan ku dugliyo ma fiicno Facebook ayaa gabar qofka wacday dhahday in fartuuna ahay waxaan ka rabaa aniga qof bini aadan ilaahay abuurto wax aan warsadana ma laha inaan inta isku sheegaa fiican qofkii markuu uu farfuuxay oo ay fartuuxu dhaal video itus video call kugu soo waca iga qabo qoftii because video call kugu soo waca markii la dhahay arinta la hadlay way diiday markay diiday ka bacdi in qofkii WhatsApp keega la soo siiyay lambarkeedu soo wacay in fartuun hay waran okay ana fiican waxa waxa ay soo turi dhahday inta ku soo xabiyaal dhan waxa waay adina ku kasaay markii waxa leeyahay dadka Facebook yaha beenta ku isticmaalay oo ku tuugsanay oo dawarsanay inaad yaryaalo gacali hada kala xishoodo mid kale Instagram ana ma isticmaalin waxaan arkay Instagram oo follow la soo dhaay oo fartuun ah oo arintii oo qamar suugaani oo soo dhigto aan waxyaalo kale aan ka hadlay miyo qoftaas ani Instagram ma isticmaali Facebook ma isticmaali marka dadka tuugsanayo Instagram-ki iyo Facebook-ya fartuun magacooda ku tuugsanayo ilaa marka uu guriga badar uu ka saala abaya mise abo meekas kala badarka doono ilaa aniga hay uu kor tuugsanaysa xabiyaalo in arinta labaad inaan ka hadtaas su'aalo gudbay arinta labaad aan ka hadlo waa maxay in mid 3 wiilo fartuun way soo jeclaadeen la dhahay mid koowaad horta ani wiilashan waa wax kumanti ay ku raadinayaan dadkan kunta la soo sheegaa fiican waxaan waa dhalanteed dab ma aha waa dhalanteed waa dad kumanti ku raadinayo oo hadal macna daliskaaga hadlaayo waa waxaan ma aha wax dab marka dadka oo maskax dadka ka cunay waxaan leeyahay walaalayaal waxa la joojiyo waa wax kumanti lagu raadinayo ninkan dhahay Cabdikariin oo Hargeysa ka soo hadlay iyo ninkan Buucan ya Muglaas Aanad miya moogi dhankaas ka soo hadlay iyo mid waxa arkay Joof iyo Joorad YouTube kala leeyahay mid عرفدان ميل أكفر يعني أركي أرنتاس مكهد لايو ولا لي أنا معانا يجرب هدان رو ما هو عن رأس ولا أنا قلت أنا غف يجرب إيو ميل قارئيو وحسب بعاني مرتو حاني ليا بدك بانتي إيو بين أورك ولا عن هجو جيام وحيالاس ميلك عرفدان أكفر يعني وحن كله أبو عرفك إلى ميلك لك سهلا marka hadalada ku hadlaysan waa inaad ka fiirsateen qofka ku soo diyaabay inse ana ilaa hadeertaan in fartuun 3 wiil soo jeclaatay kan waalida hal mar ma soo joogin ilaa maanta waxa uu kan inaan soo joogo Facebook ya beenta lagu sameeyo wiilish islaamad lagu caanayo in lagu caayo muddo qaadanayaan waa wiil walaalahayga ma gaartay wiil islaamad in lagu caayo Facebook oo ana aan lahayn page aniga aan lahayn Instagram oo aniga aan lahayn in lagu caayo ma jeclaani taas waa ka xumahay kala argina walaalahayga waxaan leeyahay mar walba madaxdiisa arintiin aniga maliga boqor jaalan ku celcelinaya baadadin buuxdan taas waa ka bixina qof dambi in lagu caanin ilaa aniga gacanta ku haa qof dambi in lagu caanin mudaas in madaxkii marka baadadin buuxdan taas waa ka bixinaya marka waxaan leeyahay 3 wiil soo jeclaatay Soomaali waxay dhahan arinta qofkii kaaga hormar ayaa hadiyad leh arinta qofkii kaaga hormar ayaa hadiyad leh hadiyadaasna qofkii rahan doono wala arki doona bardacna wala sameyn doona hadiyadaas qofkii rahan doono wala arki doona arintaasna gudaha waa loo gali doona marbayna xasaas socdo ka musiiqa in haween dambeeyay soo gal waa la jecel yahay xabad kala kacsan waxay tahay hadda halkan ugu sii sheegay indaas isku badan marka la muuqaalkaasna la duuwaaya marka waxaan leeyahay in dhamaantiin marwaad in saddexaad waa salaamintiin dambe in wiil walaalahayga page aniga aan leenahay Instagram oo aniga aan leenahay lagu aflagaadin si aan ugu caanin taas maanta waa ka hadlaybo waa u jeedaan aniga Facebook ya 3 wiil walaalahayga mar walba waxaan leeyahay hor u socod walaalayaal waxaas
waxaas waa wax kuminta lagu raadinaya dhalanteed waayo run ma waxa haalina in furtun waxaas ka soo hadlaysaa iyo waxa ana maxaa ugu soo hadlaya inta ana ugu aamusay naftirkii waa ana kuminta saasan waxaan ugu soo aamusay aan ka hadli waayo ayaan ogahay ilaa mar ayaan ka hadli doonaa saddexdu bil arintooda ku ahaado maraan ka hadli doonaa markii aan ka hadli doonaa way soo socotaa waxaan leeyahay asxaabteena sidii inuu